Halqadda labaad waxay ku bilaabanaysaa Jaya oo daba gashay ruuxaantii. Waxay go'aamisay in meesha ugu dambaysay ee jinnigu uu galay ay ahayd macadka farshaxanka. Waqtigaas, Iban wuxuu iska dhigay shaqaale rakiba qalabka macadka farshaxanka. Wuxuu ku rakibay derbiga kamarad iyo projector. Habeenkaas, shaqaalihii macadka farshaxanka runtii waxay arkeen ruuxaan. Aad bay u baqeen, isla markiiba waxay u tageen maamulaha si ay u hubiyaan arrinta. Laakiin markan, sawirka ruuxaanta wuxuu isu beddelay sawir ku dhex jira rinji ka mid ah macadka. Ruuxaanta ayaa ka soo muuqday rinjiga, taasoo keentay in maamulihii uu cabsi darteed misana uu cararo. Maalinta xigtay, Jaya waxay timid macadka farshaxanka si lama filaan ahna waxay halkaas kula kulantay Iban. Isla waqtigaas, ruuxii dulmana wuu soo muuqday. Jaya waxay dareentay jirkeeda oo dhan inuu qaboobayo. Waxay samaysay xayndaab Iban agagaarkiisa si aysan u ogolaan inuu dhaqaaqo. Laakiin Iban wuxuu arkay calaamad kor ka soo dhacaysa oo ku sii jeeda madaxa Jaya. Inkastoo uu ku jiray xayndaabka, haddana wuu ka baxay, wuxuuna Jaya ka riixay si uu u badbaadiyo. Arrintaas awgeed, Jaya ma aysan arkin wejiga dhabta ah ee ruuxaanta dulman. Si kastaba ha ahaatee, waxay si lama filaan ah u ogaatay in mar kasta oo Iban uu agteeda joogo, qabowgii ay dareemaysay ayaa baabo. Farxad darteed, Jaya waxay qabatay gacanta Iban. Dhoola caddayn ayaa ka soo muuqatay wejigeeda. Waqtigaas, Inaya ayaa timid. Markuu Iban uu arkay, wuxuu bilaabay inuu isbaro oo uu ka hadlo shaqadiisa, balse si degdeg ah ayaa loogu sheegay inuu ka baxo macadka farshaxanka. Jayase waxaa lagu casuumay inay sii joogto, waxaana lagala hadlay arrimaha macadka. Waxaa la ogaaday Inaya inay taqaanay in Jaya ay horay u caawisay shirkado kale jinni saarid iyo iibinta guryaha. Inaya waxay rabtay inay Jaya ku casuunto inay jinni ka saarto macadka farshaxanka, kadibna dhulka macadka lagu iibiyo qiimo sare. Laakiin Inaya ma rumaysnayn in jinniya dhab ah ay dunida ka jiraan. Isla waqtigaas, walaalka yar ayaa yimid. Isla marka uu yimid, wuxuu ku eedeeyay Inaya ganacsi xumo inay hayso, taasoo sababtay in macadka farshaxanka lagu faafiyo warar khuraafaad ah. Jaya waxay ka baxday halkaas, waxayna la kulantay Iban macadka farshaxanka hortiisa. Labadoodii waxay bilaabeen inay ka fikiraan sida ay midba midka kale ugu muujin lahaa daacadnimo iyo in heshiisku uu faa'iido u yahay labada dhinac. Si lama filaan ah, wada hadalkoodii kadib waxay ku heshiiyeen hal gacan inay ahaadaan. Iban wuxuu soo raacay gaariga Jaya. Isaga iyo saaxiibkiisa waxay bilaabeen inay fariimo isdhaafsadaan. Iban wuxuu u sheegay inuu heshiis la saxiixday Jaya. Saaxiibkiisana wuxuu weydiiyey haddii Jaya ay jeceshahay isaga. Iban wuxuu soo xusuustay sida Jaya ay gacantiisa ugu taabatay macadka farshaxanka, una dhoola caddaysay si yaab leh. Wuxuu bilaabay inuu rumaysto in uu ahaa geesi badbaadiyey gabar, isla markaana raganimadiisa ay Jaya soo jiidatay, taasoo keentay inuu ku dhaco jacayl. Kadib waxay tageen shirkadda Diibak. Jaya waxay si aamusnaan ah ula socotay Iban tan iyo markii ay guriga soo galeen. Ugu dambayn, waxay u ogolaatay Iban inuu koro dabaqa labaad. Shakhsiyaadkii caadiga ahaa ee horay u yimid si ay u tijaabiyaan dhammaantood way ku guuldaraysteen, laakiin Iban si dib la'aan ah ayuu u koray dabaqa labaad. Jaya ayaa daba socotay. Waxay u sheegtay in qolkaas uu ku jiro ruuxaanta hooyadeeda. Waagii ay Jaya yarayd, waxay aragtay jinni galay hooyadeeda oo weliba eejinaya ilaa ay ka dhimatay. Ninkaasi wuxuu aad ugu ekaa adeerka Iban. Jaya waxay dib u xusuusatay wixii hore u dhacay, waxayna ballan qaaday inay Iban siin doonto lacag aad u badan si ay u bilowdo xafladda jinni saarista hooyadeeda. Xafladdii way bilaabatay, balse Jaya waxay aragtay in ruuxaantii hooyadeeda ay gashay jirka Iban. Si kastaba ha ahaatee, Jaya ma awoodin inay Iban ku muddo timo qabsigeeda. Xafladdii way fashilantay, Ibanna wuu miyir beelay. Riyadiisa dhexdeeda, Iban wuxuu arkay muuqaalka adeerkiis oo dilaya hooyada Jaya sanadkii hore. Markii uu soo toosay, Jaya waxay siisay silsilad. Waxay u sheegtay in haddii uu xirto, uu ka badbaadi doono ruuxaanta dulman ee geli karta. Silsiladaasi aad bay ugu ekayd midii uu Iban yaraantiisii ka helay adeerkiisa. Markaas ayuu Iban garwaaqsaday in qofkii silsiladda siiyey uu ahaa adeerkiisa oo ma ahayn aabihiisa. Sidoo kale, shilka adeerkiis iyo dhimashadii hooyada Jaya si dhab ah ayay isugu xirnaayeen. Iban wuxuu rabay inuu ogaado runta, sidaas darteed si deeqsinimo leh ayuu u aqbalay inuu noqdo qof gaar ah oo u shaqeeya Jaya. Intaas kuma ekaan, wuxuu isaguba dalbaday inuu kala shaqeeyo Jaya jinni saarista. Jaya waxay jinni saarid baranaysay iyadoo yar, hooyadeeda ayaana hagaysay. Laakiin weligeed si toos ah ulama kulmin jinniyo. Waxay ku tababaran jirtay keliya kuwa yaryar, taasoo ka dhigtay mid aad ugu caajista. Hooyadeeda waxay u sheegtay in qofka raba inuu noqdo jinni saare loo baahan yahay inuu qaado mas'uuliyad culus. Ruuxaan kasta oo dunida ku wareegaysa ma aha mid lagu kalsoonaan karo, sababtoo ah kama takhalusi karo nacaybka iyo qoomamada qalbigiisa ku jirta. Taasi waa sababta aysan u doonayn inay dunida ka tagaan. Shaqada jinni saaraha waa inuu ka tirtiro xusuusta xanuunka leh, una siiyo ilowsho dhadhan leh, si jinnigu uu ilooba noloshan oo uu dib u dhalasho uu helo. Jaya waxay ku casuuntay Iban inuu heshiis la saxiixdo, balse Iban wuu diiday. Wuxuu sheegay inuusan heshiis la gelayn dad u eg dalaalo. Markaas ayay Jaya ku amartay shaqaalaheeda inay Iban siiyaan lacag gaaraysa 2 milyan oo lacagta Jayniiska ah mushahar ahaan, maadaama uu yahay qofkii ay raadinaysay. Shaqaalihii si degdeg ah ayuu u cararay si uu uga hor istaago Jaya inay bixiso mushahar intaas leeg. Laakiin markii uu ogaaday in Iban si fudud u geli karo dabaqa labaad, dabeecaddiisii si degdeg ah ayay isu beddeshay. Wuxuu bilaabay inuu noqdo dhexdhexaadiye u dhexeeya labada dhinac. Wuxuu Iban u sheegay inay arrinta wada hadli doonaan, kadibna mar dambe la soo xiriiri doonaan. Markii Iban uu baxay, shaqaalihii wuxuu isku dayay inuu Jaya ku qanciyo inay heshiis la gasho. Sababtu waxay ahayd in Iban u muuqday qof aad u xoogan. Ma aha oo keliya inuu Iban kor u qaadi karo heerkulka jirka Jaya, balse sidoo kale wuxuu qaadi karaa xusuusta ruuxaanta. Dhammaan waxyaabahaas waxay aad faa'iido u ahaayeen Jaya, balse weli Jaya waxay dareemaysay inay keligeed wax walba qaban karto. Markii shaqaalaheedu uu arrintan maqlay, wuxuu xusuusiyey wixii hore u dhacay. Sanadkii hore, markii Jaya ay jinni saaraysay ruuxaan shar leh, waxay ku sigatay inay dhimato. Dhanka kale, markii
markii ibaan uu soo laabtay wuxuu Jaya u sheegay inuu doonayo inuu ka shaqeeyo shirkadda Deepak. Jaya way fahmi weysay waxayna u malaysay in ibaan uu ka tagayo, sidaas darteed ayay su'aalo badan u weydiisay. Laakiin dhab ahaantii ibaan wuxuu rabay inuu baaro dilkii adeerkiisa cidda ka dambeysay, isla markaana uu hubiyo in uu xiriir la leedahay shirkadda Deepak iyo in kale. Markii Jaya iyo shaqaalaheedu si fiican uga fakareen arrinta, ugu dambeyn waxay go'aansadeen inay la shaqeeyaan ibaan. Ibaan markuu akhriyay heshiiska wuxuu arkay qodob aad u adag oo ku yaala dhammaadka warqada. Inta uu Jini Saare ahaan u shaqaynayo waa inuusan rabitaan dumar yeelanin. Arrintaas aad bay uga nixisay ibaan. Wuxuu is yiri sidee ayay arrintan u faragelin kartaa noloshayda gaarka ah. Laakiin shaqaalihii ayaa u sharxay isagoo leh qofka waa inuu noqdaa qof aan weligiis waxyaabahaas samaynin si uu u awoodo inuu xakameeyo ruuxaan dumar ah oo leh tamar aad u fara badan. Haddii kale qofku wuu dhiman karaa. Markii Jaya ay tan maqashay, isla markiiba ayay ibaan fariisisay waxayna u sheegtay shaqaalaha in ibaan uu weli keligiis yahay. Markii ay xaqiijiyeen labada dhinacna si rasmi ah ayay heshiiska u saxiixeen. Kadib waxaa loo dejiyey inay degaan maqaayad yar oo ku taala dhinaca kale ee shirkadda Deepak. Isla waqtigaas shaqaalihii wuxuu qof u diray inuu quraac ugu keeno wadada. Wuxuu sidoo kale u sheegay qofka keenaya cuntada inuu la socdo xaaladda labada qof ee hadda soo degay. Ibaan iyo saaxiibkiisa weli ma aysan ka tanaasulin qorshahoodii ku saabsanaa macadka farshaxanka. Habeen ka mid ah habeenada waxay rabeen inay adeegsadaan muuqaal Jini si ay Inaya u cabsi geliyaan. Laakiin waqtigii ugu muhiimsanaa, Inaya waxaa soo wacay qof, markaasay degdeg u baxday. Qorshihii mar kale ayuu fashilmay. Saaxiibkii wuxuu wacay ibaan si uu ugu sheego wixii dhacay. Laakiin markaas ibaan wuxuu ku jiray Jini Saarid uu la samaynayay Jaya, sidaas darteed waqtigaas ma uusan heli karin inuu ka hadlo arrintaas. Jaya iyo ibaan waxay tageen gurigii rinjiilaha uu ku dhintay. Jaya waxay shiday uunsi. Si lama filaan ah, maqaarkeedu wuu isbedelay cabsi darteeda. Nalalkii ayaa si kedis ah u shidmay una damay, taasoo caddaysay in ruuxaan ay weli ku jirtay qolkaas. Jaya waxay bilowday inay meel walba ka baarto. Si lama filaan ah, ruuxaantii ayaa soo muuqatay. Jaya waxay qaadatay qalabkeedii Jini saarista waxayna ku oroday ruuxaantii. Waxay ku xirtay jaranjarada. Maadaama ruuxaantii la xanibay, si tartiib ah ayuu madaxii u rogay. Markii uu ku sigtay inuu muujiyo wejigiisa dhabta ah, uunsigii weelka ku jiray ayaa dhammaaday. Ilbiriqsi gudihiis ruuxaantii mar kale ayay baabaday. Sababtoo ah heerkulka jirka Jaya aad buu u hooseeyey, jirkeeduna wuu daciifay. Waxay si degdeg ah u qabatay gacanta ibaan. Isla markiiba ibaan wuxuu bilaabay inuu si kale u fasirto ficilka Jaya markuu arkay iyada oo gacantiisa haysa. Laakiin Jaya ayaa u sharaxday ibaan in kadib Jini Saarida jirkeedu aad u qaboobo. Si kastaba ha ahaatee, marka ay taabato ibaan, heerkulka jirkeedu si degdeg ah ayuu caadi ugu soo noqdaa. Markuu ibaan taas maqlay, aad buu u farxay, wuxuuna bilaabay inuu naftiisa qiime sare uu siiyo. Wuxuu dareemay in xaaladda hadda jirta uu yahay qof gaar ah oo aan la bedeli karin. Maalintii xigtay, ibaan iyo saaxiibkiisa waxay ka wada hadleen arrinta macadka farshaxanka. Sida uu saaxiibkiisa u arkay, Inaya maalin ayay dhammaan nidaamyadii kaamaradaha ammaanka demisay. Waxay keligeed istaagtay qolka farshaxanka. Intaa waxaa dheer, waxay iibsatay caymis gaar ah. Xitaa haddii bandhiga la dheereeyo, lacag dheeraad ah ma bixinayso, taa beddelkeedana lacag ayay kasbanaysaa. Arrimahan oo dhan waxay ibaan u muujiyeen wax aad yaab u leh. Isla waqtigaas, ibaan saaxiibkiisa wuxuu maqlay in hooyadii Jaya ay si murugo leh u dhimatay intii lagu jiray heshiis Jini Saarid ah. Kadib ibaan wuxuu soo xusuustay in mar kasta oo Jaya ay Jini saaraysay ay uunsi shidato. Ibaan weli ma uusan rumaysnayn Jiniyada. Wuxuu u maleeyay in uunsiga uu leeyahay walxo qofka wareeriya. Sidaas darteed, markii uu ku sugnaa dabaqa labaad ee guriga Jaya, si lama filaan ah ayuu u miyir beelay. Ibaan wuxuu go'aansaday inuu hada weelka uunsiga marka Jaya aysan guriga joogin. Markii Jaya ay baxday, ibaan wuxuu bilaabay inuu raadiyo weelka uunsiga. Wuxuu baaray meel kasta oo guriga ka mid ah. Intii uu raadinayay, wuxuu helay sawir hooyadii Jaya. Markii uu sawirka qaadayay, si lama filaan ah ruuxaanta hooyada Jaya ayaa ka soo muuqday agtiisa. Taleefankiisii si degdeg ah ayuu bateri uga dhammaaday, balse ibaan waxba kama uusan dareemin. Wuxuu taleefankii jeebka geliyey isagoo aamusan, wuxuuna sii watay raadinta. Ugu dambayn wuxuu helay weelkii uunsiga wuxuuna ku riday boorsadiisa. Isla markaas guriga waxaa ka soo yeeray dhawaaq yaab leh. Ibaan wuxuu raacay codkaas. Ruuxaanta hooyada Jaya ayaa kabihii oo dhan dhulka ku tuurtay. Ibaan cabsi darteed ayuu afkeeda u daboolay. Isla waqtigaas Jaya ayaa guriga timid. Markay maqashay buuqa, waxay soo fuushay dabaqa sare. Kabihii si lama filaan ah u dhacay ma aysan cabsi gelin ibaan. Taa beddelkeeda wuxuu bilaabay inuu dhulka fariisto oo uu kabaha nadiifiyo. Intuu nadiifinayay, wuxuu yiri kabahan badankood waa isku naqshad. Ereyadaas ruuxaanta hooyada Jaya waxay soo xasuusiyeen waxyaabo badan. Markii Jaya ay soo gashay qolka, wax aan caadi ahayn ma aysan arkin. Waxay bilowday inay hooyadeeda canaanto, iyadoo u malaynaysa inay iyadu guriga qastay. Intii ibaan qolka dhex wareegayay, Jaya ayaa aragtay. Markii uu ku sigtay in la qabto, ibaan saaxiibkiisa ayaa mashquuliyey Jaya. Fursaddaas ayuu ibaan ka faa'iidaystay, wuxuuna ka booday dabaqa labaad. Sidaas ayuu uga baxsaday. Ibaan arrin farxad ayuu u sheegay saaxiibkiisa waan inuu xaday weelkii uunsiga, laakiin markii uu soo bixiyey, wuxuu noqday bo'or oo keliya. Ibaan saaxiibkiisa Jan wuxuu bilaaway inuu ka shakiyo in runtii uu Jini ku jiro guriga Jaya. Laakiin ibaan wuxuu yiri Jiniyo adduunkan kama jiraan ee caadi iska dhig. Dhanka kale, Jaya waxay sii waday baaritaanka ruuxaanta rinjiilaha. Inkastoo ay si degdeg ah u aragtay wejigiisa, haddana Jaya waxay awooday inay hesho xog ku saabsan ruuxaanta. Sababtoo ah cadaynta faraha aad bay u burbureen, ma aysan xaqiijin karin aqoonsiga rinjiilaha. Nin kale ayaa wuxuu dhintay bil ka hor, sababtuna waxay ahayd dhaawac maskaxeed. Intii uu noolaa, wuxuu qabay kansarka sambabada ah oo heerkii ugu dambeeyey maraya. Markii Jaya ay maqashay warbixinta uu keenay kaaliyaheeda, waxay ibaan u kaxaysay macadka farshaxanka. Waxay rabtay inay si toos ah u baarto xiriirka ka dhexeeya Booyo iyo macadka
macadka farshaxanka. Markay halkaas gaareen, Inaya iyo farshaxaniista Jo ayaa soo dhaweeyey. Markii Iban uu arkay rinjiilaha caanka ah ee Jo, si edeb leh ayuu ugu socday, wuxuuna gacanta u qaaday. Laakiin wuxuu dareemay in gacmihiisu ay yihiin kuwa jilicsan oo yaab leh, sida gacmo aan muddo dheer wax rinjiyeynin camal. Jaya ma raacin habdhaqankii edebta ahaa, waxayna si toos ah u gashay arrinta dhabta ah. Waxay weydiisay rinjiile Jo iyadoo leh, sawiradaada ma dhammaantood qof kale ayaa kuu sawiray? Markuu taas maqlay, wejigiisu wuu isbedelay. Jaya waxay u dhaqaaqday hal sawir, waxayna mindi ku jartay lakabka kore. Markii lakabkaas la jaray, waxaa hoostiisa ka soo baxay sawir isdul saaran. Taasi waxay caddaysay in tani ay ahayd aqoonsiga dhabta ah ee ruuxaankii dulmanaa. Markii Jaya ay su'aalo adag weydiisay, rinjiiluhu ugu dambayn wuxuu qirtay magaca qofka u rinjiyeyn jiray sawirada. Iban aad buu ula dhacay geesinimada iyo awoodda Jaya. Dhanka kale, Inaya oo ag taagnayd aad bay u xanaaqday. Inaya waxay rinjiilaha ugu yeertay xafiiska. Haddii arrintani bannaanka u baxdo, sumcadda macadka farshaxanka si xun ayay u dhaawacmi lahayd. Rinjiile Jo weli wuxuu isku dayay inuu runta qariyo, wuxuuna sheegay inuu hore u lahaa kaaliye rinjiile. Laakiin Inaya ma ahayn qof sahlan. Waxay u sheegtay in marka bandhigu uu dhammaado, uu howlgab noqdo. Rinjiile Jo wuu diiday waxa qalbigiisa ku jira, balse door kale ma uusan lahayn. Sidaas ayuu uga baxay isagoo niyad jabsan. Markuu u degay dhulka hoose, wuxuu sii waday inuu caayo Inaya. Laakiin markii uu gaarigiisa fuulay oo uu doonayay inuu baxo, gaarigii si lama filaan ah ayuu u istaagay. Muraayadda hore ee gaariga waxaa ka muuqday raadad gacmo oo dhiig leh. Arrintaas waxay si aad ah u cabsi gelisay rinjiile Jo. Markay ka baxeen macadka, Jaya waxay u sheegtay Iban in wax kasta oo ku saabsan jini saaridda ay tahay in si qarsoodi ah loo hayo. Haddii kale waxay keeni kartaa dhimasho. Iban hadal ahaan wuu ogolaaday, balse si qarsoodi ah ayuu saaxiibkiisa ula xiriiray, wuxuuna ka dalbaday inuu ururiyo dhammaan caddaymaha si ay ugu diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah rinjiile Jo. Muddo yar kadib, labadoodii waxay gaareen guriga rinjiile Jo. Laakiin markaas Iban wuxuu ogaaday inuusan wadanin siladii jini celinta ee ay Jaya siisay. Waxay noqotay inuu si kama ah u tuuray markii uu wax cunayay. Isaga oo aan ka warqabin ayuu si toos ah u aaday guriga rinjiile Jo isagoo la socda saaxiibkiisa. Guriga rinjiile Jo waxaa ka buuxay xaajooyin iyo warqado jini celin ah, taasoo muujinaysay in ruuxaan dulman uu dhibayay labadii maalmood ee u dambeeyey. Rinjiile Jo wuxuu daawaday fiidiyowgii uu Iban u keenay, markaas ayuu si degdeg ah u siiyey boorso lacag ah. Wuxuu ku yidhi, marka aad burisa ruuxananta ayaan idin siinayaa lacagta inteeda kale. Laakiin Iban waxba kama aqoon jini saarid. Sidaas darteed, isla markiiba ayuu u sheegay rinjiile Jo in uu Jaya raadsado, iyada oo keliya ayaa awood u leh jini saaridda. Markaas ayay labadoodii istaageen si ay u baxaan. Laakiin wax yar markay socdeen, dabayl qabow ayaa si lama filaan ah ugu dhacday. Dhammaan xaajooyinkii derbiga ku xirnaa way wada dhaceen. Rinjiile Jo aad buu u baqay, wuxuuna isku tuuray dhulka isagoo si joogto ah ugu baryaya inaysan ka tegin. Laakiin waqtigaas, ruuxaantii dulmanayd hore ayuu u galay jirka Iban. Iban oo la haysto ayaa indho nacayb ka buuxo ku eegay rinjiile Jo. Isla markaas Jaya ayaa timid si ay u ogaato waxa socda. Markay maqashay buuqa, waxay si degdeg ah ugu soo oroday gudaha. Markay guriga gashay, waxay aragtay Iban oo qoor qabanaya rinjiile Jo. Jaya si degdeg ah ayay ugu booday, waxayna tuurtay Iban. Kadib waxay siladii jini celinta ugu xirtay qoortiisa. Isla markiiba jinnigii dulmana wuu ka baxay jirkiisa, wuxuuna indho xanaaq leh ku eegay Jaya, kadibna wuu baabay. Waqtigaas Iban wuu soo miirsaday. Iban saaxiibkiisa iyo rinjiile Jo labaduba si argagax leh ayay u eegayeen. Iban waxba ma uusan fahmin, wuxuuna Jaya weydiiyey sababta ay halkaas u joogto, laakiin Jaya aamusan ayay uga baxday. Sababtoo ah wuxuu weeraray rinjiile Jo, booliiska ayaana qabtay, balse Jaya si degdeg ah ayay uga damaanad qaaday. Markay ka baxeen saldhigga booliiska, Jan wuxuu Iban si xoog ah ugu jiiday gaariga. Labadoodii waxay mar kale aadeen guriga rinjiile Jo si ay u jini saaraan. Jan mar kale ayuu uunsiga shiday. Wuxuu go'aansaday in sawirada oo dhan la gubo, uu jinigu soo baxo. Sida la filayay, ninkii wuu soo muuqday. Jaya waxay adeegsatay qori sixir ah si ay u qabato. Kadib waxay si qaylo leh ugu tiri Iban, silsiyadda iska siib si uu jinigu ku galo. Laakiin waqtigaas, Iban wuxuu soo xusuustay xusuustii xanuunka badnayd ee lagu hayn jiray, taasoo ka dhigtay mid aad u baqay. Sidaas darteed, Iban ma uusan ku dhiiranin inuu iska siibo silsilada. Jaya waxay aragtay in unsigii ku dhowaanayo inuu dhammaado, halka Iban uu weli istaagan yahay oo aan dhaqaaqaynin. Sidaas awgeed, way oroday waxayna ka qaadatay silsiladii qoortiisa ku jirtay. Isla daqiiqadaas, jinnigii wuxuu galay jirka Iban. Jaya si degdeg ah ayay u soo saartay timo-qabadkeedii, waxayna ku mudday laabta Iban. Sidaas ayay xafladii jini saariddu ku dhammaatay. Iban wuxuu dareemay tamar qalbigiisa ka imaanaysa. Xusuustii ruuxaanta ka hor intuusan dhimanin ayaa ku wareegatay maskaxda Iban. Waxaana la ogaaday in xaaska ninka dhintay ay si daran u xanuunsanay. Si uu xaaskiisa u daweeyo, ninkii wuxuu sameeyey wax kasta oo uu awoodo. Markii loo soo noqday waqtiga hadda, timo-qabadkii iyo ruuxaantii dulmanayd si tartiib ah ayay u baaba'een. Laakiin sababtoo ah Iban wuxuu helay xusuustii ruuxaanta, qalbigiisu wuu jabay, ilmaduna way ka soo qubanaysay. Iban wuxuu Jaya weydiiyey isagoo ku leh, maxay ahayd wixii hadda igu jiray? Jaya waxay ugu jawaabtay, waxay ahayd xusuus uu ruuxaanta ka qoomamaynayay, uuna ka tegi kari waayey ka hor dhimashadiisa. Inkasta oo ruuxaanta ay dabargoy, haddana raad yar ayuu ku reebay jirka Iban. Raadkani maalmo yar ayuu sii jiri doonaa, kadibna isagaa baabii doonaa. Kadib, labadoodii waxay ku noqdeen shirkadda. Ka hor intaysan kala tegin, Jaya iyada gacanteeda ugu xirtay silsiladii jini celinta qoorta Iban. Waxay u sheegtay inuu maalmahan nasasho uu qaato, oo sameeyo wax kasta oo qalbigiisa dejinaya si aanu xusuustaas u dhibin. Markii Iban uu ogaaday in Jaya ay 10 sano jini saarid samaynaysay, aad buu ula yaabay, wuxuuna yidhi, tani runtii way adag tahay. Isagu hal mar oo keliya ayuu sameeyey, haddana aad buu u dhibaatooday. Laakiin Jaya 10 sano ayay keligeed u adkaysanaysay wax
waxyaabahan. Ibaan qalbigiisa ayuu ka fikiray in ay nolol aad u adag soo martay Jaya, laakiin tan iyo markii ruuxaantii u dambaysay ay baabay, Ibaan markasta wuxuu ku riyoon jiray inuu ag joogo sariirta isbitaalka ee xaaska ninkii dhintay. Ilmo ayaa si joogto ah uga soo qubanaysay. Ibaan wuxuu Jaya uga warramay arrintan. Wuxuu si dhab ah u rabay inuu caawiyo xaaska ninka dhintay si lacag loogu helo qaliinkeeda. Jaya waxay dareentay inaysan taas samayn karin, sidaas darteed way u diiday si toos ah. Si kastaba ha ahaatee, waxay aaday Inaya waxayna siisay fiideo muujinaya ninka dhintay isagoo wax rinjiyeynaya intuu noolaa. Isla markaana waxay u sheegtay Inaya in ninka uu lahaa xaas, isla markaana uu sawir ka sameeyay xaaskiisa. Jaya waxay Inaya weydiisay haddii ay suurtagal tahay in sawirkaas dib loogu celiyo xaaskiisa. Inaya si degdeg ah ugama jawaabin su'aashaas, taasoo Jaya ka dhigtay mid aad u xishootay. Sidaas darteed way macsalaamaysay oo waxay ka baxday macadka farshaxanka. Laakiin ma aysan filayn in xafladda dabaaldega bandhiga Inaya ay si cad u shaacin doonto arrinta ah in Rinjila Jo uu dad kale u dirsan jiray inay sawirada u sawiraan. Inaya xitaa waxay soo bandhigtay cadaymihii. Dad caan ah oo ka kala yimid dhinacyo kala duwan oo goobta joogay ayaa wada hadal bilaabay, taasoo sababtay in Rinjila Jo uu si degdeg ah uga cararo xafladda isagoo aad u xishoonaya. Markuu baxsaday, Rinjila Jo wuxuu galay baarkinka dhulka hoostiisa, halkaas oo uu si lama filaan ah ugula kulmay Ibaan. Markay labadoodii ku dhaweeyeen inay isdagaalaan, booliis ayaa yimid. Waxayna xireen Rinjila Jo iyagoo ku eedeeyay isku daydil. Waxaa la ogaaday in Rinjila Jo uu hore u ogaaday in ninka dhintay uu qabay kansar heerkii ugu dambeeyay ah. Ninkiina wuxuu ka baryay Rinjila Jo inuu iibsado mid ka mid ah sawiradiisa si uu lacagtaas ugu noqdo deegaankiisa una daaweeyo xaaskiisa. Laakiin Rinjila Jo markii uu maqalay arrintaas, wuxuu ka walwalay mustaqbalkiisa shaqo. Wuxuu ogaaday in haddii ninka uu ka tago, uusan mar dambe guulaysan doonin. Sidaas darteed wuu xanaaqay, wuxuuna rabay inuu qaato dhammaan sawiradii ninka dhintay uu lahaa. Intii ay isqabsanayeen si kama ah ayuu u dilay ninkii. Kadib Rinjila Jo si ula kac ah ayuu u diyaariyey goobta si ay ugu ekaato in ninka uu isagu isdilay. Intaas kuma ekaan, markii Rinjila Jo uu ogaaday fiidiyowyada, isla markiiba wuu burburiyey. Laakiin ma uusan ogeyn in fiidiyoyo badan ay jireen, sababtoo ah qof qiyaas si taxadar la'aan ah ugu gudbisay. Qaar ka mid ah caddaymahaas waxay galeen gacanta booliiska. Ugu dambayn, Rinjila Jo wuxuu bixiyey qiimaha dembiyadiisa. Dhanka kale, xaaskii ninka dhintay ee isbitaalka ku jirtay way soo toostay. Markay indhaha kala furtay, waxay aragtay sawirkii ninkeeda. Sawirka dhexdiisa wuxuu muujinayay gurigii ay iyada iyo ninkeedii horay isu ballanqaadeen. Taasi waxay ahayd dhaxalkii ugu dambeeyay ee Ninch uga tagay xaaskiisa. Dhacdo kale ayaa jirtay, haweeney ayaa isticmaashay kaydsigeedii nolosha oo dhan si ay guri ugu iibsato. Laakiin ma aysan filayn in gurigan uusan caadi ahayn. Hoos mugdi ah ayaa si lama filaan ah uga soo gudbay gadaasheeda, kadibna dabayl qabow ayaa ka dhacday qolka. Arrintaas waxay haweeneyda ka dhigtay mid aad u walwalsan. Waxay u socotay dhinacii dabayshu ka imaanaysay, markaas ruuxaan ayaa si lama filaan ah uga soo booday. Cabsi darteed, haweeneydii waxay ku dhacday fadhiga. Laakiin markay isdejisay, waxay ogaatay in wixii ay aragtay ay ahaayeen bac madow oo qashin ah. Si kastaba ha ahaatee, arrimaha yaabka leh halkaas kuma aysan dhammaanin. Dhammaan qalabka korontada ee guriga yaalay ayaa si iskood ah u shaqeeyey. Ugu dambayn, haweeneydii ma aysan adkaysan karin, waxayna u qaylisay si xoog leh. Kadibna albaabkii sirta ahaa ayaa si iskiisa u furmay, waxaana dabaqa ka soo muuqday raadad madow oo aad u fara badan. Muuqaalka haddaad ka heshay like saar, haddii ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato janaalka subscribe dheh, gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsanid.